waxaan ahay Cabdikariin Dabagaale halkani waa xafiiska shirkadda dhismaha ee Dayax Construction Company oo soo kordhisay dhismayaal casri ah aan hore looga hirgelin deegaanada SSC sidoo kale waxay qiimo dhimis ballaaran u sameysay dhismayaashii khasaaruhu ka soo gaaray dagaaladii ka dhacay midooyinkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood sidoo kale shirkadda oo soo kordhisay qalab casri ah haddana waxaan booqanaynaa maamulka shirkadda Engineer Fanax oo aanu kula kulannay xafiiska السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إنجنير كسودو تلفزيون كعالمي سم نيوز تي في وبوقش ما أنت كوجي حضور بحنا قاسيسا شركة ضيح كونستراكشن كمباني شركة اسمها وايد نقول بيه وحي كم هايد شركتها وعد عد المجال إذا ما كان كقيب قادنا يسي بوركي لباتويكي الدجالة دي سامين تكوي شيء مجال Laascaanood إذا ما كان عد قيمة لمس يقيب كم إذا عد فلنت الوش قين يسين وربحنا قاسي إنجنير كسودو إنجنير محمد أحمد فنح إنجنير فنح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنكدوا هاي شركة كسودو هذا هو شركة وحن أساسني باهيدا جرتو ومجالدا كترجميسو لبك مجالدا كتاجن شقدا إنه أسمينا مجالدا قيمة دمس بقول كي بيشر إلا واتنا أو شقينه أو نسود وين ذاتك أو نقوليه هو ناجينه سوى ناكسنه أو شقينه تاسو في الشركة. إنجنير waxaan ku weydiiyay qaybaha kala duwan ee shirkadu ka kooban tahay sharaxaad kooban naga sii shirkadu waxay ka kooban tahay number koowaad waa guryaha dhismaha numberka labaadna waxaan aad iyo aad dadka ugu naxariisanaynaa numberka labaad in dadka shaqaalaha u baahan qalabka la kireeyo aan ugu geyno meel ay joogaanba ugu geyno amba shaqaalad ha noqoto amba dubiyaal qalab lagu shaqeeyo guri lagu dhiso dhan inaan ugu geyno fidhigooda hadhowna ka soo qaadano qiimo jaban oo kireyno numberka labaad waa kaas numberka saddexaadna waxa weeye guryaha inaan kireyno dadka aan u kireyno guryaha ninkii guri loo kireynayo inuu noo yimaado ninkii guri kiri doonayo inuu noo yimaado labadaba inaan maaragtay macaamil ka sameeyno wanaajino ninkii gurigiisa laga kireysanayo waxaan u sameynaynaa damaanad oo waafi ah oo ballanqaad leh ninkii guriga kireysanayna isagana waxaan u sameynaynaa wanaag oo kii hore ka duwan oo guriyihii loo markuu kireysanayo guriga dadkiisa oo buuq iyo daawo iyo dood leh oo nadaafad leh wanaagsan guri qurux badan leh inta saddexda qaybood bay ku koobantahay shirkadda inta inaan uga shaqeyno dadweynaha oo Laascaanood ku nool sidaas baan u fulay shirkadda baahida engineer markii aan eegay nashqadaha aad midooyinkii dhaweed ugu dambeeyay aad dhisayseen waa kuwa aan hore deegaanka looga dhisin engineerada nashqadan sameeyay ma deegaanka kuwan hore u joogin baa aad keenteen mise waa kuwa hore u joogay nashqadaha hadda aan dhisayno guryaha aan ku dhisayno magaalada naqshadooyin cusub oo hadda la keenay weeye oo kuwii hore ka duwan injineerinta laftigooda waa dalabaad oo injineer hadda la keenayo dalka dibadiisa aan ka dalbnay noo joogaan naqshado wanaagsan oo kuwii hore ka duwan oo ka jaban oo maaragtaa boqolkiiba 25 guryaha hore loo dhisi jiray hadda ka qiimo jaban baan dhisaynaa naqshadahaas waa sidaas xaaladda shirkadda waxa keena baahida loo sameeyay burburka markii dhacay magaalada burburka dhacay oo dadkii lacag la'aan iyo qarash yar timid baan xisaabtanay oo fikirnay in aan u sameeyno shirkadda Dayax oo daryeelo dadka dhibeysan magaalada oo guryihiina laga burburiyo dagaalkii ku burbureen jaab la'aanta taagan baan u qorsheynay amba maaragtaa u qiyaas qaadanay in shirkadda baahi u qabto magaalada aan u dhisno guryihii dayactirka ahaa oo hagaajino intii awoodena karaankeena u hagaajino oo qiimo jaban oo hagaajino baahiyaha magaalada ka taagan iyadoo ay aad u badan yihiin itaalka magaaladuna iska yar yahay oo dadkii dhibaatooyin iyo waxyeello soo gaareen qaybo kamid ah tooracaada ama idinku jirta qorshayaasha inaad siisaan boqolkiiba boqol aad iyo aad horena waan u wadnay shirkadda intaan fadhiisan horteeda tooracaad waan ku wadnay haddana diyaar baan u lahayd dadweynaha